magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay maanta waxaa soo gaaray qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka. Boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo mas'uuliyiin ka socotay maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta madaxda soo gaaraysay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Baydhabo ayaa la filayaa inuu ka furmo shirkii labaad ee golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka, iyadoo sanadkii hore golahan la aasaasay lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo maamulkiisa uu martigelinaya shirka maamul goboleedyada dalka ayaa siyaabo kala duwan mas'uuliyiinta Baydhabo ku soo degaysay u soo dhaweeyay. Ugu horeeyna Baydhabo waxa uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, halka kan ugu dambeeyay ee soo gaaray Baydhabo uu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas ahna gudoomiyaha madasha iskaashiga maamul goboleedyada dalka. Shariif Xasan ayaa dhammaan madaxdii imaaday kelmado soo dhaweeyna u jeediyay. waxaan rajaynaynaa insha Allah shirkan la isugu yimid shir khayr qabo oo ummadda Soomaaliyeed iyo maamulada iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ay waxa la leeyahay danahooda looga shaqeeyo isna warsado oo una noqdo mid loo aayo taariikhda galo oo dadka Soomaaliyeed xaaladaha hadda lagu jiro gaar ahaan amniga wax badan ka qabto. anaga dhibaatooyinka ugu badan dhulkan yaalo alxamdulillah ilaahay nabad iyo wuxuu siiyay iyo aaran, laakiin mushkiladna ugu weyn shabaab dhibaatooyin badan ugu hayo. marka mar haddaan noo timaadeen taladii shabaab lagu ciribtiri lahaa oo kuwa dawladdiidka oo rafaadka badan ummadda ku hayo oo tala oo midaysan maamulada iyo dawladda Soomaaliyeed iyo caalamkaba ku midaysan yihiin oo kuwaas lagu ciribtiro ummadda Soomaaliyeed jidadka iyo socodka u furo. dhanka kale mas'uuliyiinta maamul goboleedyada dalka Baydhabo markay ay soo gaareen ayay saxaafadda la hadleen iyagoo u mahadceliyay maamulka Koonfur Galbeed iyo hab maamuuska loo soo dhaweeyay. madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada xildhibaanada shacabka sida quruxda badan loo soo dhaweeyay oo aan Baydhabo arki jiray waagi hore si wax loo soo dhaweyn jiray iyo labiskii inta kale labiska ma yaqaanin laakiin iyo labiska yaqaanaan aad iyo aad baan ugu bognay aad iyo aad u mahadsan yihiin. waxaan maanta aan halkaan u nimid inaan shirkii CIC-da maamul goboleedyada aan ka wada hadalno wixii danaaho noo yaala xaaladda wadanku mara amniga noqotaya maxoo ahay maamulka iyo hagaajinta jidadka la isku furaayo la dagaalanka shabaabka. run ahaantii dadku siyaasadahay ku mashquulaan laakiin hawsha noo taala ka weyn hawlahaas aan ka hadli doonaa insha Allah taala. shacabka gaar ahaan shacabka reer Baydhabo Jannaay ilaahay baana mahad iska leh waqtiga ku soo hagaagno waqti haddii hawada markaad marayso arkaysa beerihii falkii oo falhoraadkii oo lagu jiray ay say u fiican tahay kulligood waan uga mahadcelinayaa soo dhaweynta fiican ee soo dhaweeyeen. ilaahay baana mahad iska leh. waxaan rajaynayaa shirkan kulankan aan soo leeyahay ma aha mid dhib wada waa mid faa'iido ah dan Soomaaliyeed lagaga tashanayo. waxay soo wanaagtay mas'uuliyiintii dowlad goboleedyada ama CIC golihii la oranayay. waxaan rajaynayaa insha Allah wax dan oo ah dalka iyo dadka iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan galnaysa aadna ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha leh dadweynaha reer Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee nagu soo dhaweeyeen ayaga iyo madaxweynahoodu. madaxweyne aad baad u mahadsantahay runtii waana ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo marxabaynta ay ku jirto walaaltinimadu ka muuqato Soomaalinimadu ka muuqato wanaagu ka muuqdo. waan ku faraxsanahay Baydhabo Jannaay inaan nimaadno wasaa sheegtay jannada janna loogu darayo roobsatay magaratay aad iyo aad ugu faraxsanahay nimaadno saad sheegtay anna markaan soo baxay runtii waan sheegay shirkani wuxuu muhiim u yahay dawladnimada Soomaaliyeed wuxuu muhiim u yahay isu tahaynta iyo federalismka Soomaaliya wuxuu u yahay dimuqraadiyadda Soomaaliya wuxuu u yahay nabadeynta iyo adkeynta amniga Soomaaliya oo dhan saad sheegtay oo loo baahan yahay maanta dalkani la xoreeyo la xasiliyo. amniga magaalada Baydhabo ayaa maanta si aad loo adkeeyay iyadoo bari Baydhabo ka furmayo shirka iskaashiga maamul goboleedyada dalka kaas oo aan loogeen waxa looga hadlayo xilli ay jiraan haysado u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe. Maxamed Cabdi Casiis Salaad wararka TV-ga SBC Baydhabo.